lixdan calaamadood haddii aad gabadha ku aragto way ku jeceshahay. Calaamada koowaad, waxaa tahay ninka keliya ee jeceshahay. Marka ay haweeney jeceshahay nin, dareenkeeda dhan ninkaas ayuu jiraa. Marka ay haweeney jeceshahay nin, ma qiyaamayso mana shukaansanayso rag kale. Qodobka labaad, waxa ay samaysaa wax kasto si ay u farxiso ama kaaga farxiso. Marka ay haweeney jeceshahay nin, farxadiisu waxay la mid tahay iyada wax kasta ayna samaynaysaa si aynu u farxad geliso isaga. Haweeney kasta oo jecel ninkeeda waxay samaysaa waxyaabo ay ugu farxiso isaga. Qodobka saddexaad, wax badan inay ka barato ayay rabtaa. Haweeneyda jecel ninkeeda waxay doonaysaa in wax walba ama wax badan ay ka barato naftiisa. Waxayna doonaysaa inay si wanaagsan u barato ninkeeda oo ay wax walba ka ogaato. Qodobka afaraad, waxay jeceshahay la joogaaga. Haweeneyda jecel ninkeeda waxay u xistaa markasta uu ka fog yahay. Waxayna jeceshahay in la joogo oo waqti badan uu la qaato. Wayna faraxsan tahay marka la joogo. Qodobka shanaad, waxay samaysaa waxyaabo ay uga yaabsato isaga. Haweeneyda jecel ninkeeda waxay noqon kartaa mid la yaab badan. Waxay jeceshahay inay ka yaabsato ninkeeda sababtoo ah waxay jeceshahay farxadda uu waxyaabahaasi marka ay uga yaabsato uu ka qaadayo, haddii ay tahay hadiyad iyo wax kale. Qodobka lixaad, waxay doonaysaa inay mustaqbal kula wadaagto. Marka ay gabar jeceshahay nin, ma doonayso in nin kale ay mustaqbal la wadaagto. Waxayna rabtaa in mustaqbalka ay la wadaagto ninka ay jeceshahay oo keliya. Mana u muuqato in ay nin kale mustaqbal la wadaagi doonto.